ka waran daawada haddaan ku dhahdo wadankan weligii ciidamay qabsan lamana gumaysan wadankan haba yaraatee ma laha traffic light sidoo kale ma jirto cuntooyinka caanka ah sida McDonald waxaana adduunyada kale wadankan kaga duwan yahay wadankan adduunyada oo dhan buu ka xiran yahay dhanka dalxiiska dhanka dhaqaalaha dhanka ganacsiga muddo gaadhaysa 60 sano ayuu wadankan wuxuu ka xirxirnaa caalamka oo dhan waana wadankii ugu dambeeyay caalamka ee laga isticmaalo telefishinada ateenada lahaa waxa aan soo sheegnay oo waxa keenaya dhaqankooga ayay aad ugu adag yihiin dadkan haddaba wadanka waxa la yaab kala ma jirto wax la yaab fast food wax la yaab wadanka kama jirto sidoo kalena wadanka kama jirto fooqaq dhaadheer oo skyscraper kama jiro wadankan kama jiraan moolkii waaweynaa ee caalamka meel walba ka dhisnaa wadanka kama jiro wax mool la yiraahdo wadankan kama jiro wax supermarket wadankan totally kama jiro wadanka sidoo kale wuxuu leeyahay hal airport oo kaliya waxyaalaha inta ka sii waalida casna waxa kamid ah wadankan maba laha wax traffic light la yiraahdo askari baa taagan askarigaas ana kala hagaya waxaana wadankan lagu daray wadanada ugu quruxda badan caalamka uguna amniga iyo caafimaadka badan caalamka wadankan ayaa waxyaalo badan oo cajiib ah ayuu leeyahay waxa sidoo kale wadankan la mamnuucay dilista xawayaanka nooc doonaba ahaado haddii aad xawayaan disho xabsi ayaad galaysaa sigaarka iyo balastikuna wadankan waa ka mamnuuc waa wadanka la yiraahdo Bhutan oo lagu magacaabo dhulkii onkodka iyo dragonka Bhutan ayaa waxay ka mid tahay wadanada yar ee farakutiriska ee caalamka een marnaba la gumaysan wadankan ayaa markii ugu horeysay wuxuu albaabada u furay dalxiisayaasha 1970 wixii ka horeeyay wadankan marnaba lama booqan karin taasaana ka yeeshay in dhaqankooga wali ay ku sii adkaadaan waxaana la sheegay in dawladda Bhutan iyadoo laftirkeedu hoos u dhigto dalxiisayaasha iyadoo sanadkii gabigiisaba ku soo ururisay 30,000 oo qof inay sanadka oo dhan soo booqdaan wadanka haddaba wadanka Bhutan ayaa wuxuu leeyahay madaarka ugu halista badan adduunka waxaana lagu ogolyahay 50 baylood oo kaliya ayaa ku walfaayra diyaaradna ka soo dejin kara waana madaarka ugu halista badan caalamka ayuu ku jiraa tirada dadka reer Bhutan ayaa waxay 750 oo qof wadankan ayaa aad wuxuu ugu faanaa farxadda haddaba wadankan ayaa isticmaala wax la yiraahdo gross national happiness oo micnaheedu tahay in wadankan isagoo ku xisaabtamo mar walba farxadda halkii ay wadanada qaarkood kaga xisaabtamaan in dhaqaalahooda wadanka kor loo qaado waana kan boqorkii hore ee wadanka Bhutan oo si fiican u sharaxay and work for the happiness and the well-being of every single Bhutanese at all times. But now, why is it important? Now, I truly believe that for a very small country like Bhutan, with an even smaller population, it is extremely vital that we have a shared national objective. We simply cannot afford to work in different directions. Now, I have no doubt whatsoever that GNH will always reflect the aspirations of our people and the interests of our nation. Therefore, GNH is our common goal. But more importantly, I've always reminded our youth that today we have to ask ourselves, how do we continue to achieve GNH in the 21st century? Now, you must also keep in mind that what GNH is, now that will never change. But how we achieve GNH will change, and it must. haddaba wadankan intaad ku dhex jirto Bhutan lagama yaabo inaad ku aragto qof homeless ama gidaarada hurto oo bilaa guriya sidoo kale qofka Bhutan u dhashay wuxuu free ku helaya waxbarashada iyo caafimaadka waxaana wadankan caalamka kaga jira wadanada ugu hooseeya xagga dilka iyo dhacaba dawladda Bhutan ayaa waxay ku guuleysay totally inay joojiso wax la yiraahdo sigaarka ama cabitaanka siiba sigaarka sidoo kale wadankan waxa laga mamnuucay wax la yiraahdo plastic oo dhan lama isticmaalo haddaba wadankan ayaa hilibka la soo dagaa sababtoo ah wadankan totally waxa mamnuuc ka ah in wax lagu qalo wax xawayaan la yiraahdo oo la qalay waa mamnuuc waana sharci darro hilibka wadanada caalamka kale ay ka soo dhoofistaan haddaba wadankan waxyaalaha ugu guuleystay waxa kamid ah 60% wadankan waxa weeyaan waa kayn dhir baana ka baxday waana kayn 60% sidoo kale kaarboonkiisu waa negative wadankan taas ayaana ka yeeshay wadanada ugu quruxda badan caalamka waxaana dadkan haystaan diinta la yiraahdo Buddhiska waxaana caan ku yihiin sanabada waaweyn ee Buddhiska ee wadankooda ku dhex yaala dadkan ayaa dhaqankooga aad ugu adag ilaa xad ay gaareen dharka dhaqankooga lagu dhigto iskuulka haddaba wadankan ayaa
dhul ahaan wuxuu u dhaxeeyaa wadanka Hindiya iyo China ayay u dhaxeeyaa wadankan wax bad ana wadankan totally ma laha waxaana ku jira wadankan wadanada ugu farxadda badan caalamka dad halkan soo gaadhay subscribe-ka hanaga iloobin waad mahadsantahay dhamaantiinba